tababarkan oo ku saabsan ka hortagga tacdiyada loo geysto dadka nugul sida haweenka iyo carruurta, sidoo kalena ku saabsanaa wada shaqayn buuxda oo dhex marta bulshada rayidka iyo laamaha dowladda ayay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Aadanaha Galmudug Dhuusamareeb ugu qabatay ururada dhalinyarada, haweenka, iyo booliiska caasimadda. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Aadanaha Galmudug Maxamed Cali Allaale oo la hadlay dhinacyada ka qayb galay aqoon isweydaarsigan ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado tacdiyada loo geysto dadka nugul. tababarkan wuxuu muhiimad u leeyahay dhammaan Galmudug hay'adaha dawliga ah sidii ay u dabaqi lahaayeen ilaalinta xuquuqda insaanka iyo daadejinta nidaamka hay'adaha dawliga ay ugu qasban yihiin inay u dabaqaan xuquuqul insaanka. run ahaantii maanta waa maalintii koobaad, waxaan rajaynaynaa insha Allahu Kariim inay maalmo kaleeto oo badan inoo hareen haddii Ilaahay yiraahdo. hay'adaha dawliga ah waxaa waajib ku ah adeega ay bulshada u hayaan in ay in badan ilaaliyaan inay waafajiyaan xuquuqul insaanka si loo helo bulsho ka badbaada qabta tacdiyo xuquuqul insaanka ka dhana oo bulshada ku dhaca. waxaan aad ugu faraxsanahay hay'adihii dawladda ee barnaamijkaas shaqadoodu ay ahayd intooda badan inay isu yimaadeen, haddii ay noqon lahayd wasaaradihii line ministrieska iyo hadday noqon lahayd hay'adihii kale ee dawliga sida hay'adda amniga. waxaan ku faraxsanahay insha Allahu Kariim kulankan in natiijada ka soo baxda ay noqon doonto haddii Ilaahay yiraahdo mid dhammaan Galmudug laga dareemo. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Aadanaha Galmudug Ubax Xuseen Dhiblaawe oo gabagabadii madashan ka hadashay waxa ay xustay in Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Aadanaha Galmudug ay wado dadaallo lagu doonayo sidii loo joojin lahaa tacdiyada ku dhaca dadka nugul. wasaaradda ayaantanba waxay ku jirtay 16 days activism-ki iyo dardargelintii xuquuqul insaanka iyo gabdhaha tacdiga ku dhaca iyo dhammaan mataqaanaa dadka vulnerable-ka hadday yihiin curyaamiin, hadday yihiin dadka laga badan yahay ciyaal, haween. waxaa noo socday barnaamijyaashaas. barnaamijka waa barnaamij kuwa daba taagan wuxuu quseeyaa tacdiga ku dhaca iyo sida human rights-ka ama xuquuqul insaanka waxa uga aadan. tacadiga waa dhacaa laakiin xuquuqul insaanka xaguu ka soo galaa gabadha markii justice loo waayo, ama wiilkii ama odaygii ama qofkii minority-ga ahaa ama qofkii curyaanka ahaa. tacadi kaliya ma ahan gabar la kufsada, tacadiyaal badan oo dhacaa jiro, dad lagu tunto xaqooda, dad la dilo, dad la faquuqo, noocyo badan oo leeyahay. ha ugu darnaato kan gabadha kufsiga, laakiin tacadi haddaa maqasho waa qof xuquuqdiisa lagu tuntay noocee doontaba ha ahaatee. marka human rights-ka xaggeeda ama xuquuqul insaanka muxuu uga aadan yahay haddii qofkii tacadigii ku dhacay noocoo ahaadaba ha ahaadee uusan helin xuquuqdiisii ama meeshii mataqaanaa systemkii loo mari lahaa cadaaladda ama wax kale ay ku dhacaan, sidee aan ka community ahaan aan wax uga qabanaa, sideen uga hortagnaa, sideen mataqaanaa waxyaabaha dhacaya anaga dhexdeena aan isu soo ogeysiinaa. hadday tahay adiga wixii maanta ururka haweenka waxay xaafadaha ku arkeen ay ula soo isticmaalaan booliiska noola soo xiriira kiisaskii taagan yahay, annagii aan la xiriirnaa qaybtii justice-ka iyo laamihii waaxeedyaasha qaabilsanaa, hadday tahay amniga ama hadday tahay wasaaradda cadaaladda. marka wixii dhan way isku wada xiran yihiin, waa silsilad. marka traininka wuxuu ka hadlayaa ogaashada waxa dhacaayo iyo sidii aan iskugu xirnaan lahayn oo aan mataqaanaa aan uga hortegi lahayn ka community ahaan.